khadar maxamed aadan khadar shaarub iyo cabdiwahaab cismaan cumar oo kamid ah dhalinyarada gobolka Awdal oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ayaa waxay barasaabka gobolka Awdal ugu baaqeen inuu raali gelin buuxda ka bixiyo hadaladii qalafsanaa ee uu kula hadlay culimada gobolka Awdal iyagoona sheegay inay ka dhalinyaro ahaan ay yihiin culimadooda dhanka kale waxay dhaliilo u soo jeediyeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa gobolka Awdal iyagoona sheegay waa sida ay hadalka u dhigeen carabkana ku adkeeyay inuu hadaladan uu kula hadlayo salaadiinta isku soo ururiyay waxgaradka gobolka Awdal uu ka dambeeyay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed sidoo kale waxay ka hadleen xariga salaadiinta ku xidhan saldhigga dhexe magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal waxayna hadaladoodu u dhignaayeen sidan xaaladda gobolka Awdal oo muddadii u dambeysay ku jirtay in hadu barnaamijkii ila meeraysaday iska ila meeraysaday oo Awdal ka bilaabantay bari baan ku ogeyn laakiin noo soo wareegtay in maalmuhu dambeeyay waxa ka taagnaa in la leeyahay gudoomiyaha gobolka Awdal baa diinta ay taana waan rumaysanay shacab ahaan waayo cid aanu dhageysanay cid ugu mudnayd Sheekh Xasan Daheeye Sheekh Xasan Khayre Sheekh Beledki ayaa noo sheegay marka anagoo in min hindad aan culimadooda aqbalin laakiin waxa nasiib darra barasaabkii gobolka Awdal uu kaga jawaab celiyay culimadii soo eedeysay waxa inuu yiraahdo luqadaas ma aha luqadii siyaasi iyo luqad mas'uul doomiye gobolka uu sareeyay inuu nooca u hadlay bahdil baan u arkaanay barasaabku wuxuu kala garan waayay doorta dadka ay diinacayga gobolkayga laga ma yaqaan laakiin laga yaabaa inuu isagu halkii yaray tuuladii ka yimid in diinta laga caayo marka inuu culimadeeda iyo aqoonyahanka siyaasiyiinteeda ula hadlo sidii bari iyo buur madow loola hadlayay bahdil bay ku tahay ummadeeda dad xadaariyin oo ka soo jeeda boqortooyada Awdal dad loo hanjabo maaha ama loo agajugleeyo barasaabka iyo iyagana isaga fudud tagi haday noqoto dadka reer Awdal muxtarimka mudakarka ee culimada iyo mudakarka hadii noqoto lagu horimaad adeer isaga fudud tagi marka barasaabku waxaan leeyahay luqadaad ku hadasho luqad fool xun bay heed inaad apologize iyo raali gelin ka bixiso iska daa diinacayga sharciga ba laga tigsanay luqadii aad kula hadashay culimadayada inaad raali gelin ka bixisan ka sugeena kullu waa tagaysaa inta tagayso oo tii socotaa inta tagayso maalmaha kooban inaad si wanaagsan ku sii joogto waa ta kale ee waxaan arkay shalaysna inuu wasiir ku xigeeno oo halkan ugu hanjabayay oo la culimada iyo reer Awdal korina u qaadan ma ahayn wixii dhacay wasiir ku xigeenku wuxuu ka inay yaro loo soo hanjabo la soo qasbay oo ku hadlay luqadii wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo deesna inay keenay adeerkiina ina kala yeedaynay in adeerkiya marka isagu baa ku yiri aniga way igu fool xuntay adigu hadal waayo yarku si diblomaasiyadeed ma hadlayna si cadaysan buu hadlayay waxa nasiib darra iyagoo hanjabaya in qaar kamid ah reer Awdal ay shacabka tumayeen walaalkii Sheekh Xasan Daheeye 40 sano ka hor kuwii suweer noo dalacsiilaa kuwa la mid ah ayaa wali gobolka ku sii sugan laakiin insha Allah kuwana waqtigooda macna u dhamaaday baa waqta waxa nasiib darra ayadna in shacabka reer Awdal ay nooc waliba u hanjabaan ama ay ku takrifalaan oo awoodda mas'uuliyadeed loogu isticmaalo si qeyr sharci oo fool reer Awdal waxaan leeyahay iyaga yeelida wax ka yar waxa aatiini waxay bahdil ku tahay umadnimadiina iyo jiritaankiina haddaad cid kastaba ka qaadataan hanjabaad iyo propaganda ay cid ka gudbiso arrimooyin muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo noqnoqday gobolka Awdal arrimahaas oo isku jiray kuwa nabadgelyo darro iyo kuwa gacan ku sameeyso gacan ku rimisa oo rag mas'uuliyiin oo xilal hayay ay ku warkacsanayeen inay doonayeen inay ku ilaaliyaan xilalka qaranka loogu adeegayo inay qalalaase ku fadhiyaan ay ku cimri dhaasadaan waxaan ugu ka hadlayaa laba qodob waxaan cambaareynayaa xarig loo geystay odayaal adeeraday ah oo deegaankayga oo uu geystay nin leeri waa wasiirka ganacsiga oo intuu odayaashii danahoogii iyo reerahoogii iyo awlaadadoodii soo seejiyay caruurtiisii tamasle iyo dalxiis ugu baxay Sweden iyo Holland oo caruurtiisii u tagay halka caruur laga soo xidhay iyo haween odayaashoodii oo halka 17 habeen ku xidhan yihiin waxay ku xidhan yihiin la garanay xariga wan cambaareynayaa waa xarig xaaraana waana xarig baalmarsan sifada sharciga ee dalkani ku soo caanamaalay wasiirka ganacsigu odayaasha sabab uu ku xidhay
iyo sifo sharciyo loo maray iyo wax loo cuskaday ba haba yaraatay ma jirto aanan ahayn waa deegaankayga nasiib darrada kale dhacday baa waxa waa in wasiirkii deegaankiisa uu si kala abtiriyay oo maanta taagan yahay jilibkiisa ugu hooseeyay odayaasha maanta wuxuu soo xidhayna waa jilibkayga ma ahina waa jilib kale xaliga waan hadaan nahay dhalinyarada reer Awdal waanu ka xunnahay waanan ka tayrayoonayna waana ka tacsiyeynaa ummadii dhibtaas ku dul dhacday waxaan doonayaa halkan inaan ka hadlo nin kale oo leeyihiisna waa Mayor Kusheeg Booramo markastoo isagu soo noqdaba xaalad abuur gobolka dib ugu soo kordhiya waxa la yaaba nin baa maaldhootay nin dhalinyaro ugu hanjabayay inuu maayirku haysto niman rasaasta rida oo cid cambaaraysa ama dhalinsho rasaas la dhacayo wasiirka arrimaha gudaha madaxweyne ku-xigeenka qaranka iyo madaxweynaha qaranka taliyaha Blaiska waxaan ugu baaqayaa gobolkii Awdal jabhada inaan ogeyn baa ka dilaacay rag xabado iyo bastoolad loo dhiibaa suuqii jooga oo maayirku isagu gacantiisa ku samaystay waxaan doonaynaa inaad si degdeg ah arinta u soo faragelisaan oo aad gunta ka gaadhaan oo ogaataan hawshaas عشق تلفزيون كسوم نيوز مقالة بورمي حرونتا قبل كاودال